markii Carly taas uu maqlay ayuu la yimid fikrad aad u wanaagsan. Wuxuu noo sheegay hab lagu aqoonsan karo raadadka kabaha iyadoo la adeegsanayo balaastiig khafiif ah iyo buufin silikooni ah. Isla markiiba waxaan tijaabinay qorshihii Carly. Gabby waxay si guul leh ugu samaysay nuqul raadadkii kabaha. Hadda hal dhibaato oo kaliya ayaa noo hartay. Waa sideen ku gali lahayn munaasabadda. Butuco wuxuu noo sheegay in casuumaadaha lagu soo diro email. Markii Carly taas uu maqlay ayuu si kalsooni leh u yiri in uu si fudud u gali karo nidaamkooda, laakiin qorshaha xigay aad buu ii dhibay. Si aan gudaha u galo waxay ahayd inaan isku ekeysiiyo haweeney sharaf leh oo lagu magacaabo Shushu. Markii aan maqlay arrintaas wajigay waxaa ka muuqday niyad weyn. Maalintii xigtay waxaan bilownay diyaarinta howlgalka banaanka guriga Butuco. Gabby waxay wajigay marisay qurxin make up. Waxay iga dhigtay inaan u ekaado gabar. Intii aan isdiyaarinaynay ayaan wada sheekeysanaynay. Waxaan ugu waramay aabahay. Waxaan u sheegay inuu naga tegay anigoo 5 jir ah. Waalkamaankaygii waa xasuusta kaliya ee iga haray. Waxaa weli ku jiray si quruxda badnaa ee uu aabahay hooyaday u dooran jiray. Isla markaas Carly ayaa yimid. Wuxuu i siiyay qalab yar oo dhigta lagu xirto. Wuxuu sheegay inuu ka sameeyay qalab maqal oo duug ah. Sidaas ayuu howlgalkeenii qarsoodiga ahaa ku bilowday. Waxaan si kalsooni leh ugu dhaqaaqay albaabka hore ee guriga anigoo isu ekeysiiyay gabar. Waxaan dib u hagaajiyay timahayga waxaana isku magacaabay Shushu. Mrs. Warlick iyadoo aan wax shaki ah qabin ayay gudaha igu soo dhaweysay. Qaabkii aan u matalayay gabadha aad ayay u qanciyay dadka. Xitaa shaqaalihii guriga aada waxay ii soo bandhigtay cunto afakaadho ah. Dhanka kale Butuco wuxuu kaamiradaha amniga ka ilaalinayay guriga oo dhan. Wuxuu Carly iyo Gabby ku hagayay gaari madow oo nooca pick-up-ka ah oo uu lahaa Raymond. Labadoodaba si qarsoodi ah ayaa qalab dabagal ah ugu xiran gaariga. Laakiin si lama filaan ah Detective Clockneer ayaa yimid goobta. Isagana wuxuu watay muuqaal isqarin ah oo yaab leh. Markii Gabby ay aragtay aad bay u argagaxday. Waxay soo jeedisay inaan howlgalka joojino, laakiin goor dambe ayay ahayd. Detective Clockneer wuxuu si toos ah ugu soo socday dhankayga. Dhammaanteen neefta ayaan ceshanay. Waxaan ka baqnay inuu markiiba i garto. Nasiib wanaag arrintu si fiican ayay ku dhamaatay. Wuu ila gacan qaaday oo kaliya. Kadibna jidkiisii ayuu sii watay. Dhammaanteen si weyn ayaan u nafisnay. Muddo yar kadib Mrs. Warlick waxay martidii oo dhan isugu yeertay qol weyn oo shumacyo lagu shiday. Waxay sharaxday sida kulanka ruuxiga ah u dhici doono. Intii ay dadka la hadlaysay ayaan si xeelad leh iska dhigay inaan cuntadeedii daadiyay. Markii aan dugay ayaan si qarsoodi ah dhulka ugu kala bixiyay baca balaastiig ah. Dibadda cimiladu si lama filaan ah ayay isu beddeshay. Daruuro madow ayaa cirka qariyay. Hilaac iyo onkod xoogan ayaana hawada ka yeeray. Daawadii sharafta leh muuqaalkan oo dhammaystiran waxaad ka helitaan YouTube-kayga. Hana iga ilaawin inaad subscribe ii saarto muuqaalkan ala gareyso. Mahadsanid. Wixii faala ahna halkaas inoogu reeb daawasho wacan.